maalintiyo habeenka istaba maro mugdi iyo iftiin marma wada kulmaan mugdi iyo iftiin marma wada kulmaan maalintiyo habeenka istaba maro mugdi iyo iftiin marma wada kulmaan mugdi iyo iftiin marma wada kulmaan mudbada walaali kala maqna maslaxada allay meel ku wada mareen mudbada walaali kala maqna maslaxada allay meel ku wada mareen murugiyo isman afbalaga baxyo dadku wehay kamaydhan waxay soo mareen murugiyo isman afbalaga baxyo dadku wehay kamaydhan waxay soo mareen mar haddii laysu yimid waa mahadale waa inaan midownoon ismuujinaa aadan aniga maanta u faraxsanahay Garis waa ku soo koray dad badan oo hadda aniga garanayn waalidkay garanaa jooga ka sii soke dad waalid ii ah aba meesha fadhiya ninkan aabbahay wada dhasheen ani ayaday waxaa la dhahaa xaawo cusmaan ninkan aabihiisna waxaa la dhahaa xaaji cali cusmaan marka saasaaba horta ay erhan ninkan waa abtigay weliba wuxuu ahay markaan boarding schoolka dhiganayn dadkii aan kusoo ordi jirnay oo dhinac naga soo kori marka reer Garis kulli dhinacayga soo wada koriyeen kulligood jaamican waqtigiina aniga soo korayna hooyaday waxay dhihi jirtay deelka ha dhaafin dagoodii ma wala kala saari jirin maba jirin waa lagu diimi jiray waa lala yaabi jiray qofka dhaa aniga saanan ahay dagoodii saanan ka ahay maba jiri jirin qofka reer Garis oo dagoodiyahana hadalkan sheega waa fahma soo ma waaba yareenba waqtigeeda dadda waxoogaa laga yaabaa tirada inay yara badatay dadka aad u yaraadeen alxamdulillah laakiin tirada dadka badan waxaa ka fiican dad yar oo isku duuban dalalka hadda dadka badan iyo dalalka tirada yar dalal waxaa jira dad tiro yar oo degan yihiin horumarkay adduunka gaareenna dalal hadda India 1 billion people China iyo India labadaba degan 1 billion ay kor u dhaafeen Denmark iyo Norway iyo Sweden iyo Finland 2 milyan iyo 3 milyan degan ayaga khibrad la weydiina caawimaad u dira oo daawo u dira halka nolosha tiro kali maaha maskax iyo isku duubnaan iyo wadaadka wuxuu sheegay haddii la bato tafarraq bata faa'iido male la yanfaco haddii la bato waxba qabadka yaraado haddana waa khasaaro marka horta waxaan rabaa inaan insukin sheego odayaasha aad iyo aad ay u mahadsan yihiin inaad isoo qaadeenna aad iyo aad aad ugu mahadsantihiin laakiin waxaan rabaa inaan idin raaciyo in ay baratiin ay isukiin sheega qofkaan ahay cid ahaan maaha wax qabadkeyga inaan idin sheegaan rabaa iyo waxaan igu dhaliyey fikrad inaan kursi governor wajeer ka raadiyo inaan iswaraysan soo fiicno because inkastoo mar badan laga dhawaajiyey kuraheenna MCN inta ka rabnaa ee kurihii aan qaadno waa yar yahay adduunka waxaa lagu kala tegay waxa la yidhaahaa influencer codkaaga inta 200 oo qofood u sheegtay oo 500 sii gaarsii oo 2000 sii gaarsii horta kursi lagu helaa inaad inta ka tagtid oo kursi kuriisoo ridid kalimaha dadka waa wada dhasheen nin walbaba family u leeyahay nin walbaba ilxin u leeyahay nin walbaba cod u leeyahay waliba dhalinyaradiina social media ku jira
waxaad leedihiin awood dadka aad fikradooda ku bedeshiin ood wax oga dhaadhicisiin dumarkeena iyo gabdhaheenna sidii oo kale imaamiinteenna sidii oo kale kullukum raacin wa kullukum mas-uulan an raaciyati mas-uulaan iska nahay anigana mas-uulaan qof walbabana waa leader marba qofka hadduu reer yeesho ilmana yeesho waaba leader household aad leader u tahay waa mas-uuliyad ilaahay uu ku saaray marka anigu waxaan ahay nin cidda u dhashay reer gaarisna qabiilna horta aanba lahayn run ahaantii dadka i garana dagoodii waa abtirkayga ilaahay ii dhaliy laakiin soomaali maba kala saara dadka qurbaha idin deganna waa in sheegaayin reer gaarisna waa in sheegaayin social mediana way caddayn kartaa waa wax shaahid leh maanta marka inta ka tagtiin dadkiina social media garana Facebook pagekayga fiiriya gavanahiina cali bunow qorane oo saaxiibkay oon diyaarad helicopter maraykan ku saaraa ku jirto dagoodinimo uma soo dhaweyn reer kenyanimaan u soo dhaweey soomaalinimaan u soo dhaweey walaaltinimaan u soo dhaweey xafladiisa aan ka hadlahay fiirsada sidii oo kale waxaad ku arkaysiin aadan barre ducaale waxaad ku arkaysiin shiidiye waxaad ku arkaysiin faarax macalin qof kenya ka imaaday oo jalwo iyo kikuyo iyo soomaali wuxuu ahaadaba xil loo dhiibay oo maraykan lug soo saaray oo ama aan soo dhaweyn ama aan wax la qaban ama aan maraykan ku xirin ama aan foundation wax oga soo qaadan ama aan codkayga ku darsan ama ugu yaraantii aan soo dhaweyn ma jiro marka horta waxaan ahay nin dhalinyaro inta ka tagay markuu college dhameeyey dhakhtarnimo bartay hayado intuu u shaqaynayay asagoo yaro 24 jira horta murihiisiba la arkay oo hayada wakaalatu raxma iyo Al-Ibrahim Foundation associate medical director u ahay mobile health clinics raan gareynay daawooyin wajeer geynay bukaan socodka caawinay istaalada daawo u geynay dadka biyo u geynay anigoo aan dibadda cilmi u doonay oo dibadda aaday marka aan dibadda cilmi aan u tagay waxbarasho intaan meeshaas ku maqnaayna magac fiican iyo tolnimo aligoogaay wadankayga kama maqleen qaaraan dadka la bixinay inta igu soo hirata oo dagoodiye waliba naftinkiisa hoosa oo qurbaha imaaday kii soo tahriibay kii xabis lagu xira kii guur u baahnaa kii la duugay kulli haddana odayaan u ahay dadka hadda maanta siyaasiyiinta oo la yaqaan oo beesha dagoodiye waa wax haddana social mediana ay caddaynayso ayagana ay caddayn karaan waxaan iska sheegta maaha maxamed cilmi maxamed fay ku magac dheeraa in sheegi oon hay-ad la yidhaha noket Northern Education Trust and fundraising ugu sameey ku dhow 4 milyan oo shilin oo ilmo scholarship loogu soo tirigalay oon aniga foundationka la qabtay oon maraykan ku soo dhaweey oon viisooyin la soo qaaday oon xaflad ay 400 oo qof oo maraykan caddaan u badan ay joogaan aan ku soo dhaweyn u sameey waa wax cad waxa qabadkeygii shaahid badan ay leedahay shaahidiintana dad inta laga doortaa ka mid ah oo hadda ama dowlad wasiir ka ah ama wasiir ku-xigeen ka ah ama xildhibaan ka ah aadankeynana shaahid ka ah dadka qaar oo igu yaro xumeynaa siyaas ahaan mar dhexdaas waxay wareejinayeen sawir aniga aadankeynaan aan ku galna maraykanka waxay ka dhigayeen midaan daraad Nairobi ku galnay xoogaaga igu yaro duraayeen lahay ninkaas lagu xantaa waxaan ninka dib lagu xansanin dagoodii ma wax dhib ma horta laakiin anigoo hadda aan lahayn yaani hadalka waxaan u sheegaa sawirka asaga ahay dad aan wax xun ka rabeen wax fiican u keenay waxaa la soo ogaaday sawirkii inuu ahay 4 sano ka hor oon aniga ku soo dhaweey maraykanka marka sawirkii ay shaahid fure aadankeena daraad sawir Nairobi kuma gelin gaar ahaan aniga ima wata oo dagoodii intaas oo wiilaa ka taagan laakiin waxaan u sheegaa hadalka asaga wax qabadkayga inuu shaahid leeyahay oon aniga maanta kursi iska soo doonan oon 15 sano aan ama hoggaan ku jiray ama aan cid wax u taaranay codkayga iyo jeebkayga labad mid ahaataba laba hay'ad oo foundation ah oo caawimaad badan ka geysatay wajeer wadaba 7 sano la soo dhaafay masaajidyan wax ka dhisay ceelalaan wajeer ka qoday cuntada ramadaanka markaa ugu yartahay 2 milyan oo shilin aan udxiyana keenay aan ramadaankana keenay waxaas waxaan u sheegaa inaan la dhihin ma sha Allah inaan la ogaado nin iska soo dhacay oo iska imaado wax iska raadsanayaan oon hadda horta aan ka dhex muuqday
oona xoog aan dhibkeeda iyo dheefteeda la qaybsanaay oona qof qurbaha isaga maqnaa horta aan ahayn midda kale oo raba inaan kugu dara 2019kii aan Kenya go-aan gaaray inaan Kenya ku soo lahaada marna shaqadayda xagga aan inkaga sheekeyn doono waxaan qabta aan ka shaqaysta laakiin aan Kenya imaada waxaan igu kalifay waxaan arkay wajeer waxa ka socda dhibkan reer Gaaris idinka guuxa kulligiin aanigin iga guuxaa dadkaada markaad ka yara maqan tahay dhibkooda si fiican kugu muuqana soo ma markaad ka yara maqan tahay because adigana waxaad dareemi dad kale walaalaha oo darisaad la deganta meeshii lagugu yara tirinaa inaad adiga leedahayna say u kala daadsantaad arki way ku dhibaysaa si gaar ahaanaan aniga ogahay reer Gaaris cidda dad ka degan inay wajeer kurba weyn ay ku hays dadkeena qurbaha deganna sidii oo kale ay kurba noogu haysaa wixii aad arkaysaa qaski aad arkaysaa dadkan ka dhalan waa dad fiican laakiin tafarruq waxaa keenay hoggaanka xoogaa aad u malaynaysaa inuu naga yara halaabo hoggaanka marna hadduu halaabo gurigaba haddii marba waalidka halaabo ilmaha maagaagayn marka xoogaa hoggaanka hadduu xoogaa meel yar koona kaa gala toosina u baahani anigoo islahayn keligay wax toosin karo horta hal qof keligiis wax ma toosin kara ilaah wax toosin kara laakiin talada in la isku darsado waa fiicanta siyaasadda wadaadka markuu hadlayo mararka qaar waxaan isdhahaa cudurdaar noocaas oo kale markaa maqla waxay gashay mararka qaar waxaan warniyo iska dhaaf laakiin ninaan hadda kahor wuxuu ugu yidhi nin dalka Syria u dhashay oona wadaada oona dhakhtar oon isla shaqayn oon waxyaalo badan isla qabanay oo Syria dagaalkii ka dhacay naftiisii intuu u horay Syria ku laabtay jaamacad dhakhaatiir lagu bara dhulka tunnel ka qoday aan saaxiibna aan hadda ka hor wajeergay on Mareykanka keen nin Syrian American oo Syrian hada loogu dhahan wadaadkan aan la maqlo sheeg waxaan ku dhahay siyaasadda Syria oo dhinac kaga jira caawimaadu adduun kulli geeyaa kuwa badan waxay ugu dhaheen u dhahay wadaadka data siyaasadda iska dhaaf waxaan dhahay u dhahay haday dadka fiicnaay kulli ay siyaasadda dhaafaan kuwii xumaaya u hara marka dadka xoogaa xishoonay haday bahasha wada dhaafaan maxaa noo hara yaana maamula qof aan xishoonayn soo maamulay qof aan cid u turayn soo maamulay marka aniga horta waxay u kalif baash waasaas waxaan arkay tafarruqa cidda ka dhaxyaal inaan xoogaa miciin u noqdo kuro badan oo dad loogu bootay shafka loogu qaraacdana ma bahayst cidda abkay midamaal waa iska soo taxday isoo xukun baqo marka abkay faay abkay jibrail abkay matano reebtigayo shanto sano igu fiiriye waxaan waad biga qaadan kartiine waxaa la yidhi ushaada qofkiid maxaa leh laga qaadan karaa loo dhiibtaa waad biga ceshan kartiin abkay faayo bal safartaan anaga dhinacayga soo fiiriye anigana markaas waxaan ka ballan qaadaa mas-uuliyadda lii dhiibe inaan aad u adkeey oon cidda kala saarin oo aan dhin kan waa dumaal iyo aadan yar iyo kan waa faay in aan dadka la kala saarin oo cadaaladnimo la keeno sidii gabdhaheenna ay sheegeen sidii dhalinyarada ay sheegeen oona liisu turo xoogaha in liisu turo waxaan waa badan yihiin wajeer 9 bilyan ay dowladda usoo dirtay 9 bilyan ay usoo dirtay waxaa ka badan oo aan ka sheegay away ninkii dhalinyarada waxaan u sheegay soo ninkaas maaha magacaagii sheeg aadan nuur maasha allah aadan wuxuu soo arkay clip dhalinyarada aan la kulmay wajeer waxaan sheegi rabaa kubadna tiim badan oo kubadana waa u tagay oo xataa beesha ajuuraan u tagay waxaan ahay halka qof oo governor u taagan oo barwaaqo tagay oo xataa ajuuraan la kulmay oo xataa dhalinyaro ajuuraan la kulmay oo dhalinyaro dagoodiina la kulmay oo wajeer saafna u socda oo wajeer saafna tixgelina laakiin waxaa la haanta maxaa la yidhi hoos aa laga talaa soo maaha tii dagoodii waxaan ugu mashquulaa maaha inaan afaar qabiilaysta ah ciddii meesha u badnada ka dhashay soo iida maaha annagoon midaysnayn wax ma heli karnaa annagoon teena dhammaynin qof kale wax ma u qaban karnaa oo dasaa isu kor saarantaa loo kala qaadaa soo lama dhihin marka tan aan horta rabnaa inaan saxno tan cidda markaan saxna aan tii wajeerna saxni karnaa because wajeer hadday halaawda annagaa halayni hadday hagaagtana annagaa hagaajin karan
haddaad tashan waysidna waa lagu talina taas waa mid iska cad waxay dhaheen waswahili